kulantu wacan oo wanaagsan idlahantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka maawilada dhalaanka oo ka daawataan markaas u booqataan channelkan ku leenahay YouTube ee dhalaan koriye toddobaadba sheeko cusub ayaa ku maqashaan sheekada toddobaadkan caruuray waxa la yiraahdaa sool cawro aan ku bilaabay waxa la yiri bari hore ayaa waxa jiray qoys ama lamaanacaan ah oo ku noolaa tuulo caan ahayd kuna taalay deegaan barwaaqo waxa qoyskani ay noloshoodu dhanbaadi goob ugu jireen inay dhalaan ilmo yar balse tan waxay ahayd mid ku adkaatay rabitaanka qoyskani waxa uu gaaray deegaanka oo dhan shaarkoo dhan way ka war heleen waxayse markasta alle ka baryi jireen in waqtiyada kamid ah uu siiyo ubad taas oo ahayd rabitaanka ugu weyn ee qoyskani ay noloshooda oo dhan lahaayeen shirkadooda ayaa faaftay waxayna inta badan ka warqabay rabitaankooda dadka la jaarka ah maalin maalmaha kamida ayaa iyadoo beerteeda ka shaqaynaysa waxa xaaska u yimi islaan hagoogan oo wada midho waxay ku jiri waxaan maqlay rabitaankiina iyo sidaad markasta u raadinaysaan ilmo yar laakiin wixii alla laga baryo waa la helaa ee weligin hakraja beelina waxay u dhiibtay midhihii ay gacanta ku waday waxayna ku jiri ku beer meel ka mid ah beertaada ama gurigaaga dhexdeedaba xaaskuna midhihii waxay u dhiibtay ninkeeda kadibna waxay ku beereen koob ku dhex yaalay gurigooda halkaas oo ay ku waraabin jireen maalin kastana biyo ku shubi jireen muddo ayay xaaskii eegaysay bal waxa midhahan ka soo dhex bixi karaa maalintii dambana waxaa ka soo dhex baxay ubax qurux badan maalin kasta way eegi jirtay way waraabin jirtay mararka qaarna xataa way ursan jirtay amaba way dhukan jirtay maalmo kadib ubaxii yaraa waxaa ka dhex dilaacay ilmo yar oo la yaab iyo mucjiso ku noqday waa ilmo yar caruuray oo farteeda leeg hadduusanba badhka farteeda leekayn weligeed hore umaysan arag intii tacajabtay ayay tidhi waa maxay mucjisadani waxaa tahay inan yar oo haddana fartayda leeg waxaan kuu bixin doonaa suul cawro waxay soo qaaday sallad yar waxayna ku gudashay qayb ka mid ah caleentii ubaxa iyadoo mara yar oo guduudana dusha ka saartay halkaas ayayna suul cawro ku hayn jirtay maalmo kadibna waaba kortay oo miiska cunada dusheeda ayay ku ordi jirtay mararka qaarna ku seexan jirtay maalintiina ay ku dul ciyaari jirtay oo inay miiska ka gudubto ayaaba ahaa inay daldhan ka gudubtay oo kale habeenada kamida ayaa waxa maqlay sheekada suul cawro rah weyn oo foolxun oo harada reerka u dhow ku noolaa intuu isa soo ag taagay habeennimadii ayuu ku yidhi waxay la tahay waxaa tahay ciyaar fiican oo wiilka aan dhalay ee sida caajisnimada ah biyaha ugu dhex nool uu ku ciyaari karo waa waxadeerahi oo wuuna qaatay suul cawro waxau la tegay isagoo albaabka kala baxay harada biyaha dusheeda halkaas oo wiil kale oo isna foolxumadiisa laga yaabay oo dhalay uu ku noolaa waxau ku yidhi eeg ilmahaygiyow waxaan kuu soo helay saaxiib aad la ciyaari karto waxaan filayaa hadda in noloshaadu ay noqon doonto mid aad ku faraxsan tahay waa u farxay oo waa u qeyshay waxau ku yidhi miyaad waalan tahay ha aamus hadday toosto way naga carari kartaa muddo kadib markii ay fikreenna qorshe ayay isla dejiyeen waxayna muddo isla eegayeen sidii ay ilmahan ku haysan karaan isagoo aan ka baxsanin waxay arkeen dhagax ku dhex yaalay biyaha dhexdiisa haddii ay halkaa dhex dhigaanna waxaa u soo baxday inaan ilmuhu dhanna biyaha uga dhex tallaabi karin kadibna sidaas ayay waxay go'aan ku gaadheen labadii raac inay ilmaha dhex dhigaan bartamaha harada waxay ahayd meesha keliya ay ku ilaalin karayeen waaga ayaa subaxii baryay cadceedu markii ay diirisana suul cawro ay toostay markii aragtay meeshay dhex taagan tahay ayay oohin ku dhufatay iyadoo cabsanaysa lana yaaban waxaa ehelkeed ka soo qaaday ee halkan keenay way ooyday oohinteedii ayay mar kale maqleen raggii weynaa iyo ilmihii u dhalay dabeetana way u yimaadeen wuxuu ku yidhi ma jirto sababaad u oyda kan waa saaxiibkaa isaga ayaa hadda ehelka ah isaga ayaad maalintii oo dhan la ciyaari doontaa lana joogi doontaa halkana waad ku jiraysaa salladeediina way ka qaateen iyadoo marana waxay ula soo dabaashin xilliga harada halkaas oo intay dhigeen kadibna ay isaga tageen
suul cawro way sii ooyday marba marka ka dambaysa laakiin hadaladii arxanka darrada ahaa waxa maqlayay kalluumo badda ku jiray wayna u yimaadeen waxay ku dhahdeen inantaadan yar ee quruxda badan xaq iyo cadaalad toona maaha in labadan rah ee foosha xunli ay halkan ku hayaan ha warwarin annaga ayaa kaa sii daynayna waxay fureen dhirtii ay ku xidheen biyaha kadibna dhagaxa ay dul saareen ayaa la sabeeyay biyaha ayuu hoos u sii raacayay muddo markii ay dul saareedna way la qabsatay oo hadda waabay ka heshay wayna ku raaxaysanaysaa bilicda deegaanka quruxda badan leh la dhex marayso iyo xayawaanada faraha badan leh oo shimbiro qurux badan oo u heesaya ay dulduulayaan ayaa tacajabiyey aadna way uga heshay muddo ayay biyaha la sii socotay iyadoo aragtida qurxoon ee deegaanka macaansanaysa balse mar kale ayaa duulaa sida nooca shinnida oo kale ah balse ka fool xun uu la duulay geed dheer ayuu saaray weligeedna halkan oo kale ma fuulin oo waa ay baqatay kadibna waxay ku tidhi maxaa tahay xataa shinni kaa fool xun weligay ma arag halkan maxaad ii keentay wuxuu ku yidhi adigu xataa shinni ayaa tahay laakiin maxaanad baalal u lahayn waxaan u malayaa inaad naga mid tahay oo aad naga luntay kadibna reerkiisii oo dhan ayuu isugu yeedhay markaasii carruuray dhammaantood isugu wada dul yimaadeen kadibna quruxdeeda ayay la ishqaraareen balse waxay hayeen kuwa xaasidiinay way u quuri waayeen waxayna is yidhaahdeen tan haddaad reerkiina kusoo dartaan iyada ayaa lagu wada hinaasi mid yidhi qofka tani foolxumaa tii kalena waxay tidhi foolxumadeeda maba eegi karo baleeg xataa baalalay ku duusha ma lehe kii soo qaadina wuxuu ku yidhi hadda kuma baahnin foolxumadaada annagu ma doonino shinni foolxun inay reerkayga ka mid ahaatay waad iska tegi kartaa halkii ayayna kaga tegeen muddona cidlo ayay ku noolayd biyahana caleenta ayay ka cabbi jirtay nolosha ayaa sii socotay sidaas ayay duurka ugu nooleed balse waxaa soo galay mar kaliya jiilaal qabow iyo dhaxan daran dharka ay xidhneed oo ahaa kii xagaaguna dhaxanta daran ee dhacaysa ayuu ka celin waayey marba marka ka dambaysa ayay qarqadhay maalin dambe ayay aaday beer dusha ka dadan socodku waxa uu ahaa ku gaabisee muddo dheer ayay soconaysay goor dambe oo ay biskii tahayna beerta ayay soo dhex gashay muddo waxay dhex socotana waxay aragtay god sida guriga u samaysan oo kale oo uu jir beerta ka dhex samaystay way soo dhowaatay baahi iyo gaaji ayaa haysay albaabka ayay ku garaacday jiirkii ayaa ka furay wayna u warantay kadibna way soo gelisay waxay ku tidhi soo fadhiiso jiirku aad iyo aad ayuu gabadha quruxda badan iyo haddana isleegyiin uga helay wuxuuna ku yidhi haddii aad aniga maalin kasta iga sheekayso sheeko wanaagsan tan iyo inta uu jiilaalku ka baxayo oo dhan aniga ayaad halkan igula noolaan kartaa mana jirto sabab aad uga warwarto inaad dhaxanta dub ugu laaban karto suul cawrana aad ayay ugu faraxday ballanqaadka jiirka halkaas ayay ku wada noolaayeen balse maalin kale ayaa jiirku waxa uga sheekeeyey inuu leeyahay jiiraan ama jaar la deris ah waxay ku tidhi agteeda nin jaar ayaa degan maantana wuu inoo imanayaa waase indhoole aan waxba arag waxaan kaa codsan lahaa in mid ka mida sheekooyinkaaga wanaagsan aad uga sheekayso waa uu yimi waa jiir kale oo ciidda hoostiisa ku nool oo indhala dabeetana waxa uu ku yidhi waan maqlay warkaaga soo ma nabadha iyadoo kamaysan helin suul cawro foolxumada jiirkan balse iyadoo istirqinaysa ayay hees wanaagsan ugu heestay heestii ayaa u dhegaystay markiibana waa uu ka helay jiirkii indhoolka ahaa aad ayay inoo cajabisay waxa uu ku yidhi runtii cod wanaagsan ayaad leedahay waxaan halkan gurigan gadaashiisa ku leeyahay dhulka hoostiisa god ama guri aan ku noolahay waxaan jeclaan lahaa inaad ii raacdo haddii aad doonaysid suul cawro niyadda ayay ka diiday balse jiirkii kale ayaa ku dirqiday oo soo riixday waana soo dhexgaleen god dhulka hoostiisa ku yaalla oo foolxun muddo markii ay soconayeen ayay waxay arkeen shimbir dhaawacantay oo godka ku soo dhacday jiirkii dhoolkaha ayaa yidhi shimbirtani haddeer markii halkan aan soo marayay ma oolen waxaa laga yaabaa inay hadda soo dhacday oo malaha daloolkaa sare ay ka soo dhacday way dhaawacan tahay suul cawro waxay tu naxariis badan sidoo kalena intay duurka ku noolee deegaanka kala baratay shimbirahana la saaxiib ahayde xumadda iyo xanuunka shimbirta ka muuqda ayay la socon kari weyday dib ayay u soo laabatay way u timi waxay ku tiri waxa laga yaabaa inaad ka mid tahay shimbirihii maawelin jiray iyo heesi jiray sida haddii ay tahayna waxaan kaaga mahadnaqayaa wax kastoo aad nolosheeda ii qabateen intii keliday aan duurka la noolaa ilaahna caafimaad ayaan kaaga weydiinayaa way socotay kadibna godkii jiirkii indhooluhu lahaa ayay tegtay oo aan cajabin balse muddo koobanba waxay toshay go
waxayna u keentay shimbirtii si ay dhaxanta jiilaalka ugaga duudo halkaas ayayna ku eegi jirtay iyadoo ku xanaanaynaysa shimbiruhuna waxay ahaayeen saaxiibo ay lahayd nolosheeda intii ay duurka ku noolayd biyo ayay u soo qaadaa mararka kalena caleen ayay dusha ka saari jirtay muddo dheerna way xanaanaynaysay وحتى habeenkii ayay u iman jirtay oo ma seexan jirin maalin kasta ay eegi jirtay sida ay noqonayso shimbirtan waxay ku tiri waad mahadsantahay waxa laga yaabaa hadda inaan soo ladnaanayo dhawaana aan bixi karo aad ayaad runtii ii caawisay sheekadeeda sidii tan ku dhacday waxay u sheegtay in iyadoo duulaysa oo safar ku jirta doonaysana inay aado dhulka kulayl kana cararaysay qabowga iyo dhaxamaha wadamada reer galbeedka ay si lama filaan geed madaxa ugu dhufatay sidaas darteedna ay halka tan ugu soo dhacday maalmo kadib shimbirta way ladnaatay haddana waxay doonaysaa inay tagto waxay ku tiri abaal weyn ayaad ii gashay waxaan jeclaan lahaa inaad raacdo laakiin suul cawra ayaa ku tiri may jiirarkan ayaan halkan la joogaa una malayn maayo inaan ka tegi karayo laakiin waad mahadsan tahay anigu xataa abaal ayaan kugu hayaa laakiin laga yaabaa inaan mar uu nolosheena is aragno iyadoo ka murugaysan inay iswaayaan ayayna shimbirtii sidaas ku baxday gudka ayay suul cawra ku soo laabatay hadda waqtiga kuleelaha ayaa soo dhawaanaya laakiin jiirkii u tagtay waxa uu dhajiyay dhagar kale waxay ku tiri soo ma ogin in jiirka indhoolka ahi ku doonayo inuu adiga ku guursado oo dhulka hoostiisa kugula noolaado toob ayaynu tolanaynaa intuu yimi ayuu ku yidhi waad ogtahay soo maha oo waa lagu sheegay warka wanaagsan aniga ayaa dhawaan ku guursanayo ciidda hoosteeda ayaad igula noolaan inta aysan taas dhicinayay doontay rabitaankeeda ugu dambeysay inay mar kamid ah dawladda u baxdo oo bal hawada iyo aragto deegaankii quruxda badnaa ee ku noolaan jirtay iyadoo ka warwarsan shirqoolka ay labada jiiro dhigaan waxa uu timi si lama filaan ah shimbirtii waxay ku tiri jiirka indhoolka ayaa doonayay inuu guursado oo ciidda hoostiisa igula noolaado shimbirtuna waxay ku tiri maxaad sidaa u samaynaysaa hadda waa laga baxay xilligii qaboobaha ahaa dhulkuna waa soo diirayaa laakiin waxaan aadi karnaa wadamada hadda kuleylku si fiican uga jiro uma baahnid inaad jiirarkan ciidda hoosteeda kula noolaato waxaa tahay tu qurux badan oo uma qalantid heshiis kadibna waa israaceen shimbirtina waa la duushay waxay kala gudubtay buuraha qabowga iyo barafku ku hareeraysan yahay waxayna la haaday dhulka diirimaadku ku yaal ee waqooyiga Afrika halkaas oo dhul cagaaran roobab leh oo qurux badan leh ay marba marka ka dambeysay la sii maraysay ilaa markii dambena ay la gaadhay meel kamid ah bartamaha Soomaaliya halkaas oo ahayd meel qurux badan shimbirtu waxay keentay deegaan barwaaqo leh oo ay ku noolaan jirtay suul cawro ubaxyo fara badan ayay soo dhex taagtay waxayna ku tiri halkan noloshaada ku qaado inta laga gaadhayo jiilalka kale suul cawra markaliya ayaa u bixiyay isdul taagtay waxa ka soo baxay wiil iyada oo kala ah sidooda oo kala leeg una samaysan abuurta iyada oo kale ah balse waxa kaliya ay kaga duwan tahay inuu leeyahay baalal iyo aysan baalal lahayn weligeed ma arag waxay markiiba ku qanacday in noolaha noocan oo kale yahay kuwa iyadu ka tirsan tahay ehelkeeda dhabta ah wiilka laftigiisuna waa istaagay waxa uu ku yiri qurux badnidee weligay kuma arag xagee ayaad ka timi waad ku nooleed deegaankeena maad joogin anigu waxaan ahay boqorka deegaanada tan ka tirsan kana taliya wuu soo agtaagay wuxuu u geliyay taashkii u xidhnaa wuxuu ku yiri haddii aad aniga guursato waxaad noqon kartaa boqorada deegaankan maamusha waxaanad ku soo dhawaan kartaa qasriga boqortooyooyinka ballaaran ee ka tasho suul cawrana oo waqti adag iyo xilli murugal soo martina waxay aad ugu farxday soo jeedinta uu boqorku ballan qaaday gacmaheeda ayaa u taabtay markiliyana waxay yeelatay labadii baal ee wixii nolosheeda oo dhan ka maqnaa aad iyo aad ayay u farxday haddana waxay suul cawro awoodaa inay duusho sida noolaha kale ee iyada oo kale la mid ah deegaanka quruxda badan ee boqorku ka talin jiray ayay ku faaftay halkaas ayay tan iyo maantana caruuray ku nooshay haddaysan dhiman sheekada tan caruuray waxaad ku baratay wanaaga laga dhaxlo abaalka suul cawro waxay guushan gaadhay oo ay heshay deegaankii ay ka tirsanayd iyo noolihii iyada la mid ahaa iyadoo markii dambena xataa guursatay boqor ka mid ah boqorada deegaankooda waxaana tan u sababay abaalkii ay u gashay shimbirtii dhaawaca ahayd
abaalku wuxuu noloshaada anfici karaa mar dambe ogow inaad abaal gashato aadanaha aad la nooshahay intaanu isugu imanayno sheekantan oo kale la mida tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo adiyo qoyskaagaba waxaan kuu rajaynayaa nolol barwaaqo leh